wafdi heer wasiire ayaa nabadayn ugu ambabaxay deegaano dhaca koonfurta gobolka Sool halkaas ay wada degaan beela walaalaha oo colaadi deegaankaasi ku soo noqotay muddo ku dhawaad sanada ujeedka safarka wasiirada ayaa daarnaa sidii xal waara loogu gaari lahaa colaada deegaankaasi ku soo noqotay ee loo xalwaayay wafdigan ayaa tagay deegaano dhaca koonfurta gobolka Sool oo colaaduhu ka jireen deegaanadii ay tageen ayaa waxa kamid ahaa Dabataag Dhumay iyo Kalabayd wafdigan wasiirada ayaa waxa hogaaminayay wasiirka arrimaha gudaha ee Somaliland Yaasiin Maxamuud Xiir oo ay weheliyaan wasiirka caafimaadka ee Somaliland kan waxbarashada gaashaandhigga khayraadka biyaha wasiiru dawlaha beeraha iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolkan Sool Cabdi Khayr Dirir ujeedka safarkan ayaa daarnaa sidii beelaha halkaasi wada dega koonfurta gobolka Sool xal waara colaada ka jirta deegaankaasi nabad loogu bedeli lahaa wasiirka arrimaha gudaha waxa uu sheegay in deegaankan colaada ka jirta ee soo noqnoqotay loo xalwaayay hase ahaatee iminka xukuumadda Somaliland ay diyaar u tahay inay gacan military wax kaga qabato beelaha halkaasi wada degan ee uu la kulmay odayaashooda ayaa soo dhaweeyay wafdigan ugana mahad celiyay ujeedka nabadaynta ee deegaankan u yimaadeen waxayna ugu baaqeen inay xaaladda nabad ku soo dabaalaan gacanna wax kaga qabtaan dadka colaada hurinaya ee labada nacba ka tirsan gurmadka waxa loo soo sameeyay shaqaaqooyinkii iyo nabadgelyo xumada deegaanka ka taagan in wax laga qabto dawladdu waxay u soo diyaar garowday inay shaqaaqooyinka iyo nabadgelyo xumada iyo dadkiina isku nooshaa ee isdhalay ee wada deegaanka isku ah nabadgelyadii aad xakameyn weydeen ee imka intaas muddo badan dad badan idinku dhex yimi ee la isku dayay in maxay tahay wax laga qabto nabadgelyo xumada soo gooy weyday ee joogsan weyday in wax laga qabto ayaa dawladdu u timi dawladdu waa u soo diyaar garowday nabad xumada inay joojisay doonaysaa dibna ugu dulqaadan mayso ciddu doono ha noqdo qofku doono ha noqdo qoysku doono ha noqdo qabiilku doono ha noqdo cid dambe oo arrintaas sii wada dawladdu diyaar uma aha inay sii eegato haddaa idinku garan weydeen tolkiin hadduu idinka caal waayey haddii aad laydin kari waayey haddii aad joojin weydeen iminka waxa loo yimi in laydinku khasbo oo gacanta laydinku qabto oo nabadgelyo xumada ay dawladdu soo afjartay u timid dawladdu u dulqaadan mayso laga bilaabo maanta cid dambe oo arrintaas sii wada waa maqlaysaan waxba laydin qarin mayno waxaa laydinku baaqayaa oo marka hore laydinka codsanayaa inaad joojisaan nabadgelyo xumada inaad baaqaqa laydin soo jeediyo iyo awaamirta dawladda ka soo baxaysa aad u hoggaansataan ciddii lagu arrimaha u hoggaansami weyda dawladdu u dulqaadan mayso maslaxaad dambe ma jirto subaasalaax dambe ma jiro u dulqaadasho dambe ma jirto dawladdu gacan bay gacantay ku qabanaysaa arrintaa awoodeeda isticmaalaysa dawladnimadeeda isticmaal wasiirka madaxtooyada Maxamuud Xaashi Cilmi ayaa halkaasi ka hadlay waxa noo dhinaa oo kaliya hal shay shaygaasna malaha hadda nagu qasbaysaa baa filaya inaanu idin layno ayuunbaa noo dhinaa marka runta idiin sheego oo mayd badan oo idinkaa aanu daadinno ayuunbaa dhinaa waxaanu keennay oo sanadkaa aa isdilayseen dushiinna iyo hareerihiinna tago waxaa wiil qori madow sita inamadaa nin waliba degaankiisii aanay halkaasi ahayn ee bacadka iyo abaarta iyo silaca iyo duruufta qaba ayaa idin dul taagan waa ciidankii loogu talagalay haddii cadow shisheeye dabadiina kaga yimaada inay difaacaan dee idinku cadow ma tiid cadow shisheeyena ma tiid waa ciidamadii loogu talagalay in xeryo go'an ku jiraan ayaa maanta dhexdiina taagan 11 guutoo ciidamada qaranka ah ayaa 30 intaa 50 kilomitir maanta ku hareeraysan muddada sanadka ilaa rabadaantii hore ilaa iyo maanta 10 bilood shaydaan isku kiinibtileeyay ee dagaalka iyo colaada iyo dhigtalaalka dhexdiinu socday haddaanay kuwaas idin dhex joogin maanta joogin ma yeelateen iska daayo dhumay maydaan wada joogteen dhumay maanta maydaan wada joogteen waa idinkaa masaajidka ku wada tukanaya waa idinkaa magaalada wada jooga maydaan wada joogteen Dabataagna maydaan wada joogteen
meelo badan oo kalena maydaan wada joogin runtaan isu sheego dawladdu waa tii taa suurta gelisay maxaanu hagrannay haddaan waxaa sharcududa idiin keennay oo ciidankiiba idinku dilsilacay sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Sool Cabdi Khayr Dirir oo xukuumadda Soomaaliland wasiiradan ka socday deegaankaasi tagay uga mahad celiyay ujeedka ay deegaankaasi u soo gaadheen iyo gurmadka nabadeynta ay deegaankaasi u yimaadeen waxaa maraya wasiirka madaxtooyada wasiirka arrimaha gudaha wasiirka gaashaandhigga wasiirka kheyraadka biyaha wasiirka tacliinta mataqaana wasiir dawlihii wasiirka caafimaadka wasiir dawlihii mataqaana beeraha janankii ciidanka gudoomiye ku-xigeenka labaad xisbiga kulmiye saraakiishii kale ciidamada noocyada kala duwan waxay u socdaan waa duruufta jirta hadday tahay xagga abaarta iyo hadday tahay xagga nabadgelyada waxaan u baahannahay inaynu iswaraysanno oo isdhegaysanno oo aad hadashaan odayaashii deegaankuna ay hadlaan hadalkana soo koobaan waad aragtaan mudanayaal halkan waxaa ka jirta abaar baaxad leh si ay indhiina kusoo arkayseen odayaasha labada dhinac ayaa soo dhaweeyay wafdigan waxayna sheegeen inay kala shaqayn doonaan nabadeynta deegaankaasi sidii beelaha halkaasi wada degan xal nabada looga gaadhi lahaa colaadda ka jirta koonfurta gobolka Sool ayaa sababtay dhimasho ku dhowaad ilaa 80 qof iyo 160 ku dhaawacmay deegaanadaasi taasi oo soo noqnoqonaysay muddo ku dhowaad sanada ujeedka wasiiradan ay deegaankaasi u tageen ayaa ahaa sidii xal waara deegaankaasi looga gaadhi lahaa dadka deegaanadan ayaa si weyn u soo dhaweeyay wafdiga heerka wasiir ee deegaankaasi tegay si ay xal waara uga gaadhi lahaayeen colaadda deegaankaasi ku soo noqnoqotay deegaano dhaca koonfurta gobolka Sool waxaa ka jira colaado raagay iyo abaaro dadka saameeyay waxaana deegaanadaasi iminka xaaladda dadka noloshoodu maraysa meel aad u daran markay dadkaasi isu raaceen abaaro iyo colaado deegaankaasi muddo ka jiray Faarax Maxamuud Dubad TV-ga Goobjoog magaalada Laascaanood